gudoomiyayaasha dallada isbahaysiga mucaaridka ee BSN ayaa booqashooyinkoodii ugu dambeeyay oo daaranaa wacyigelinta bulshada iyo sii xoojinta wada shaqaynta u dhaxaysa shacabka iyo midowga isbahaysiga badbaado qaran ee BSN waxayna booqashadoodaasi jaanta ku soo mariyeen suuqa xaafadda Xayaabley oo kamid ah degmada xaafad weynta Balbala ee caasimadda Jabuuti. madaxda BSN waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay dadweyne aad u fara badan ay ka mid yihiin ganacsatada iyo shaqaalaha ka hawlgala suuqaasi iyaga oo ku qaabilay madaxda BSN sacab iyo mashxarad iyo farxad iyo raynrayn aad u ballaaran taasi oo muujinaysay kalsoonida iyo taageerada ay bulshadu u hayso midowga isbahaysiga badbaado qaran ee BSN. intii ay booqashada ay ku guda jireen madaxdu waxay si fool ula kulmeen qaybaha kala duwan ee ka hawlgala ama ka shaqeyta sariibada Xayaabley sida hiliblayda, xawaashleyda, khudradleyda iyo ganacsatada yaryar ee ku ganacsata miisaska iyo wixii la halmaala. madaxda BSN waxay si naxariis leh u dhageysteen cabashooyinka iyo talooyinka iyo baahiyaha ay qabaan ganacsatada ka hawlgala suuqaasi waxayna sidoo kale indhahooda ku soo arkeen duruufaha adag ee horyaala bulshada adeegsata suuqaasi ganacsato iyo macaamiilba. madaxdu waxay bulshada u cadeeyeen in xal waara laga gaari doono baahiyahooda markii la helo maamul hufan oo daahfuran kuna salaysan cadaalad iyo ka shaqaynta danaha dadweynaha. sidoo kale waxay madaxda BSN si adag dhaliil ugu soo jeediyeen maamulka haatan talada haya oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid u xaglinaya danaha gaarka ah kana aradan danaha guud gabayna mas'uuliyadii ka saarnayd xaaladda cakiran ee ka taagan dalka haatan waxayna ku baaqeen in gacmaha la isqabsado dhinacna looga soo wada jeedsado sidii wax looga qaban lahaa nidaamkan musuqmaasuq hareeyay ee hortaagan horumarka dalka iyo nolosha bulshadaba.